daawadayaal kusoo dhawaada African Somali Media. Maanta waa barnaamijkeenii ugu horreeyay ee nagu soo qaadan doono channelkeena African Somali Media, kaasoo idin xiisa gelin doona sidaan rajaynayo insha Allah. Muxuuse noqon doonaa daawasho wanaagsan. Afrika waxay hooy u tahay in ka badan 1.2 milyan oo qof. Labada qaaradood ee ugu waaweyn marka laga reebo, Afrika waa magac caan ah oo ka sii gudbay xeebta Niilka, badda Atlantika ilaa Pacifica. Magaca Afrika waa mid waqti kadib ku xiran dhaxal taariikheed, isla markaana ku xiran kacaano taariikhi ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hal muhiim ah oo ku saabsan magaca Afrika, oo dood u ahaa 10 sano dhowr iskuul. Iskuuladan ayaa ku doodaya in ay keeneen magaca saxda ah ee maanta aan u naqaano Afrika. Iskuuladaas ayaa ku doodaya in magaca Afrika uusan weligiis ka soo bixin dadka dhexdiisa oo aan weligood laga maqal. Dugsiyadani waxay ku doodayaan in Afrika markii hore loogu magac daray Alkebulan, isla markaana si ballaaran loogu magacaabay Alkebulan ka hor inta aan magaca Afrika loo bedelin. Ninkan oo lagu magacaabo Aina Diop wuxuu qoray magaca qadiimiga ah ee Afrika. Wuxuu ahaa Alkebulan. Alkebulan waa ka ugu da'da weyn, waana ereyga kaliya ee asal ahaan asliga ah. Waxaa isticmaali jiray Maros, Nubinios, Numerios, Kard, Hairis iyo Ethiopia. Afrika oo ah ereyga khaldan ee ay xilligan qaateen waxa siiyay Greekii hore iyo Roomaankii. Magacan markii ugu horreeyay ee ay qaateen waxay qabsadeen boqortooyooyin, iyagoo ka wareejinayay gobol ka mid ah una wareejinayay gobollo kale, iyagoo ku darayay dhulal dheeri ah dadyowgii tirada badnaa ee ay abuurayeen. Afrika waa qaaradda labaad ee ugu weyn adduunka. Maros ilaa maanta waxay hayaan booska ugu sarreeya sida mid ka mid ah boqortooyooyinkii ugu xooga badnaa, ugu qanisanaa, uguna aqoonta badnaa ee taariikhda soo martay. Aina Diop wuxuu ku socdaa inuu la doodo taariikhyahanada. Dugsiyadan mid ka mid ah wuxuu tilmaamayaa qaaradda sidoo kale in loogu yeedhay magacyo badan oo kala duwan: Alkebulan, Ortogia, Kaf, Libya iyo Ethiopia. Daawadayaal, maanta waa naga intaa. waa inoo iyo barnaamijkeena labaad haddii alla yidhaa. La socosho wanaagsan. Fadlan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir. Mahadsani.